بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada khiyaaray, waxaan ku eegaynaa dawooyinka la yidhaahdo cardiovascular drugs. marka cardiovascular drugs kaasaynu cashirkeenan ku eegi doonaa aan live-ka kusoo galnay caawa. marka introduction marka hore siin doono intaynan dawooyinka aynaan gelin. dawooyinkan la yidhaahdo cardiovascular drugsku waa dawooyin loo isticmaalayo in lagu daweeyo xanuunada ku dhaca xididdada dhiigga iyo wadnaha. xididdada dhiigga iyo wadnaha ayaa la isku yidhahdaa cardiovascular problems. waxaa ka mid la isku yidhahdaa cardiovascular system. marka cardiovascular systemkaas xanuunada ku dhaca dawooyinka loo isticmaalana waxaa loo odhanayaa cardiovascular drugs. marka cardiovascular drugs ayuu ka hadli doonaa introduction. marka hore waxaan eegaynaa horta waa maxay cardiovascular diseasesku. xanuunadan aan leenahay waan daweynayna, dawooyin baa loo isticmaalaya laga cardiovascular drugsku maxay yihiin? waxa la cardiovascular diseaseska ama xanuunada ku dhaca wadnaha iyo xididdada dhiigga. marka laga hadlayo xanuunada kale ee dunida ku dhaca waxay kaga jiraan baa laga kaalmaha hore ama waxa la waa major health problems. xanuunada ugu badan ama mashaakilaadka ugu badan ee dadka ku dhaca, weliba khaas ahaan marka loo eegayo wadamada reer galbeedka ay safka hore kaga jiraan xanuunadani, oo waxaa la yidhahdaa civilization diseases baa la yidhahdaa. dadka inta badan xanuunada infectiouska ama xanuunada caabuqyadii la isqaadsiiyey waxaa ka takhalusay mainly waxaa ku dhaca inta badan oo iyagu ay aad uga cawdaan xanuunada aan ka imanin microbeska ama infectiouska aan ahayn. marka kuwaas ama xanuunada chroniga ama xanuunada lala noolaado. marka sababtaas halkan aynu ugu xusnay western countries inay badan ku badan yihiin, walow imika ay nagaba aad xanuunadaasi ay noogu badan yihiin. marka xanuunadaasi marka laga hadlayo inaga xagga dalkeenana aad bay usoo kordhayaan oo usoo badanayaan. wada hypertensionkii baa ka mid ah ama dhiigkarkii baa ka mid ah. marka dhiigkarku imika aad buu inaga inoogu badan yahay iyo macaankuba oo labadaba laba xanuun chronic ah, laakiin inaga mawduuceenan hypertensionkunbaa ka khuseeya. marka laga yimaado western countrieska, si kastaba ahaatee xanuunadani developing countrieska ama dalalka soo korayay way kusoo badanayaan oo Somaliland ay ka mid tahay. haddaba xanuunadan ay ka sheekeynay cardiovascular diseaseska aan leenahay waan daweynayna intooda ugu badan waa xanuuno khatar ah ama saameyn badan bulshada ku leh. xanuunada saameynta bulshada ku leh ee cardiovascular disorderska loo yaqaano waxaa ka mid ah hypertensionka ka mid ah, dhiigkarka, congestive heart failure baa ka mid ah, wadnaha oo fashilma, angina pectoris baa ka mid ah. marka angina pectoriskuna waa xididadii ee wadnuhu lahaa ee muruqa wadnaha waraabinayay ee dhiigga siinayay oo ciriiri noqda, ischemia ay ku dhacdo, dadna blood flow-gu uu ku yaraado ayaa angina pectorisku ay ka dhalataa. iyo cardiac arrhythmia oo ah in dabkii wadnaha ee wadnuhu uu ku shaqaynayay khalkhal uu ku yimaado, dabdhaliyihii wadnaha ama baytarigii wadnaha. waay intaas marka waa xanuunada commonka ee cardiovascular disorderska weya. haddaba drugska intooda ugu badan available-ka ah ee la helo ee cardiovascular diseaseska loo isticmaalaa ujeedadoodu waxa weeyaan inay yareeyaan dadka xanuunada inay ku dhacaan iyo inay u dhintaan. morbidity waa xanuun ku dhicid, mortality-na waa dhimasho due to these disorders xanuunadan. saa daraaddeed chapterkeena imika halkan aynu ku akhriyayno, ku sheegayno, ka hadlayno cardiovascular drugska, pharmacology-ga dawooyinka aynu ka sheekeynay cardiovascular diseaseska loo isticmaalayo ayaan halkan ku discuss garaynayna.
waxaan ugu horreysiinaa dawooyinka antihypertensive drugska ayaynu ugu horreysiinaynaa. marka dawooyinka antihypertensive drugska aynu ugu horreysiinayno intayna dawooyinkan aynan gelin waxaynu ka horreysiinaynaa hypertension waa maxay horta. hypertension waayo antihypertensive drugs waa dawooyinka dhiigkarka. antihypertensive drugs waa dawooyinka dhiigkarka. haddaba qolada qaabilsan wadnaha ama kooxda ama groupka ama muxuu ahaye hay'adda American Heart Association la yidhaahdo arrimaha wadnaha iyo ka sheekaysa xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caafimaadka wadnaha iyo waxay ku qeexayaan hypertensionku inuu yahay arterial blood pressure waa cadaadis dhiig oo dhex maraya xididdada halbowlayaasha loo yaqaano oo ka badan 40% systolic dhiigga sare ah iyo 90 oo ah diastolic. marka systolic iyo diastolic waxay ku kala systolic waxa weeyaan markuu wadnuhu uu dhiigga tuurayo, diastolicna markuu wadnaha dhiiggu uu soo gelayo. weliba wadnaha oo dhan maahe ventricles kale waayo wadnuhu qolol buu leeyahay. qolalka wadnuhu leeyahay wadnuhu qaabkan oo kale yahay. halkaa muruq baa ku yaala septum la kala qaybiya. halkaana waxa ku yaala valves. halkan kala valves baa ku yaala. valvesku waa wax kala xadinaya qolal. marka halkaa qol baa ku yaala, halkaana qol kale ku yaala, halkaasna waa qol, halkaasna waa qol. dhiigga marka hore labada qolo hore ku soo horeeyo dhiiggu soo galaa wadnaha imanayo, deedna labadan hoose haddana u daadega. markuu labadaa dhiiggu gelayo yani dhiiggu markuu meel ku shumayo yani tamar badan oo baahna shay meel sare keenay meel hoose ku socda energy badan ma baahna inuu ku socdo. ka markaa waxa la yiraahdaa diastole baa la yiraahdaa. pressurekiisu waa ka 90 uu ka badan yahay imika. marka hore laakiin waa mise pressurekiisu normalki waa 8. marka hadda dhiiggu halkan ku soo ururo labadan qole hoose uu ku soo ururo dhiigga waa la tuurayaa. dhiigga marka la tuuro dee shay kor loo tuuray imika wuxuu u baahan yahay cadaadis badan in lagu tuuro. marka kiilo 80 buu ahaa cadaadiskiisu meesha ku shumay kan laakiin cadaadiskiisu normalki waa 120. marka dhiigga wadnaha laga saarayo ventricles ka saarayo waa 120 kan ventricles ku kaleeyay waa 8. goorma la oranaya hypertension waxa la oranayaa kan 120kii markuu ka bato 140 kan 80kii markuu ka bato 90 markaas hypertension la oranaya. weliba qof markuu ku yimaado marka aad cabirto 140 ama 145 uu noqdo kan 90 ama 90 uu noqdo marka waxaad ku oranaysaa hypertension baa ku haya. maya kuma oranayso qofka markiiba hypertension baa ku haya kuma oranayso ama yani kuma oranayso qofka markiiba dhiig kar baa ku haye. qofka waxa la cabirayaa based on 3 measurements. waxa la cabirayaa 3 cabiraadood baa la sameeyaa at different times. weliba 3 cabiraadood waxa la sameeyaa waqtiyo iyo xilliyo kala duwan ayaa la sameeyaa. waay marka ka wax la hypertension marka waxaan ku sheegnay waa arterial blood pressure waa cadaadis dhiig uu ku dhex marayo xididdada dhiigga oo ka badan systolic uu ka badan yahay 140 diastolic uu ka badan yahay 90. weliba lagu saleeyay 3 jeer qofka in la cabiro 3 xilli oo kala duwan ayaa la cabirayaa. hypertension hadda waxaan u kala saaraynaa 3 category ama 3 group aynu kala saaraynaa. markayna hypertension qaybinay classification ku sameeyna 3 qaybood u kala saarayno waxaanu ka eegaynaa qaybintaas waxa la yaqaan diastolic blood pressure. diastolic blood pressure. diastolic blood pressure ku muxuu ahaa markii hore waa 80 kan 120 maxaa la yaabeen nidhi systolic blood pressure SPP kana waa DPP. marka kan ay raacayna ino classification kan raacayna xaga raacayna 140 ka 90 ay raacayna. marka inuu 80 ka raacayna 80 ban haysan normally 80 ka haduu ka bato hadaba 3 category kala saarayna. 80 ka haduu ka bato oo diastolic blood pressure kiya 3 category waynu kala saarayna. 3 category waxaanu kala saarayna mid waxa la yiraahdaa mild hypertension, mid waxa la yiraahdaa moderate hypertension, mid waxa la yiraahdaa severe hypertension. waay goorma hadaba mild la oranaya normalku muxuu inoo ahaa diastolic 80 buu inoo ahaa. mild hypertension waxa weeyaan
waa diastolic blood pressure waa cadaadiska dhiigga ee marka hore normalkiisu 80 inoo ahaa ee dhiiggii ventricleska soo gelaya ahaa markuu u dhaxeeyo 95 ilaa iyo 105 qofka haddii marka la cabiro diastolkiisu noqdo 95 ilaa 105 inta u dhaxaysa hadduu noqdo waa halkii 80 laga reebay halka uu tago waxa la yiraahdaa mild hypertension haddii diastolic blood pressure-ku uu u dhaxeeyo 105 ilaa 115 waxaa la yiraahdaa moderate hypertension yani xaalad dhexe ayuu hypertension ku jira markan uu jiraa waa mild markan uu jiraa waa moderate markan uu jiraa waa severe uu drain hadda goorma waa severe hypertension waxaa la marka uu gaaro 105 iyo 10 yani ka sareeyo gaaro ma ka sareeyo above 115 mm mercury 105 iyo 10 mm mercury marka uu ka sareeyo ayuu noqonayaa severe hypertension way halka waxa isla fahnay hypertension xigtaankiisa iyo saddexda nooc hypertension ka loo qaybiyo aynu ka socono ma layla socdaa hadday la socotaan oo si fiican codkayga u maqlaysaan chatka igu soo qora war kula soconaa si fiican markuu maqlaynaa saan u sii socono way waxaan ku sii soconaynaa antihypertensive drugskii ama dawooyinkeena aan ku soconaynaa nimanka waxaan ka soo baxnay hypertensionki waan soo qeexnay waxa kale aan sameynay tibiskiisina waan soo sheegnay halka waxaan eegaynaa marka laga hadlayo blood pressure ama cadaadiska dhiigga doona dawooyinkan inaan u isticmaalo ku daweyno blood pressure sida caadiga ah si loo ogaado maxaa keenay blood pressure-ka qodobada go'aamiye marka hore blood pressure-ka qodobada go'aamiye blood pressure-ka haddii wax iska bedelaan blood pressure-ka wuu isbedelayaa marka waxaa jira factors determine gareeyo go'aamiye blood pressure factorska go'aamiya waxaa ka mid ah waxa la cardiac output baa ka mid ah cardiac output-ka waa laba shay oo la isku dhuftay waa stroke volume-kii iyo heart rate-ka ayaa la isku dhahay cardiac output waxa weeyaan waa xaddiga dhiig ah ee wadnuhu u tuuro ee ka baxa per minute ayaa la cardiac output labadaas shay baan ka koobay marka dhiigga wadnuhu uu tuurayo iyo awoodda uu ku tuurayo waxaasaa la odhanayaa waa cardiac output total peripheral resistance of the vasculature baa jira isaguna qodobka labaad ee go'aamiye ah total peripheral resistance of vasculature waxa weeyaan xididada dhiigga marka la tuuro wadnuhu dhiigga tuuro xididada dhiigga uu dhex maraya resistance-ka caabiga ka imanaya intee uu leegayay isaguna marka caabiga iyo resistance ka imanaya vasculature-ka ama blood vessels-ka iyo xididada dhiigga ka imanaya isaguna waa jamca xididada dhiiggu ma caabiga ka imanaya muu badan yahay oo dhiigga marka lagu tuuro dhiiggu ma ciriiri buu gelayaa si dhiiggu si nafsi u maraya hadduu dhiiggu ciriiri galo dee pressure-ku wuu badanaya hadduu dhiiggu si nafsi u marana dee normalkiisa buu ahaanaya haddii aad u waaweynaadaanna dee pressure-ku hoos buu u dhacaya oo xaaladda hypertension buu ka tegayaabo hypotension buu gelayaaba hypotension ayuu gelaya marka resistance-ka xididada dhiigga ay leeyihiin uu saameeya blood pressure-ka xaddiga dhiigga la tuurayaana
وسامين مديك بدن بالطوري مديك يل بالطور مديك نورمال كابالطور وسامين أنت أمرين كني ما إنه hypertension كي مركنا نقيبنا waxaan u qaybinayaa primary hypertension iyo secondary hypertension waxaan u qaybinayaa primary hypertension iyo secondary hypertension the primary hypertension iyo secondary hypertension maxay ku kala duwan yihiin primary hypertension iyo secondary hypertension waxay ku kala duwan yihiin oo farqiga u dhaxeeya uu noqonaya haddii qofka xanuunka dhiig karka lagu arko wax sababina aan la garanaynin oo yacni causka ama etiology ama wixii keenayba aan la garanin anuu yahay waxa la waa primary hypertension waxaa lagu qiyaasaa 80% ilaa 90% caseska dadka yacni 100 qof ee hypertension ku dhacaba 90 ka mid ah ama 80 ka mid ah haddaynu yara faahfaahino 100 qof ee hypertension ku dhacaba 90 ka mid ah ama 80 ka mid ah ayaa unknown cause ah oo aan la garanin wax sabab qofka lagu arko hypertension waa sababta hypertension loo yiraahdo marka waa silent killer sababta loo yiraahdo weeyaan laakiin qofka haddii xanuun kale leeyahay macaan buu leeyahay amba wuxuu leeyahay kaliya xanuun buu leeyahay amba dyslipidemia buu leeyahay subago buu leeyahay oo faatka iyo dufanka ayaa ku badan dhiiggiisa cholesterolka ku badan ama endocrine problems kale leeyahay mashaakilad kale xagga hormoonaadka ah hadduu mushkilad kale qofku xanuun kale lagu yaqaan deedna uu ku dhaco dhiig kar dii waxa la waa secondary qofkan xanuun hore u lahaa xanuunkii hore sababay marka dhiig karka labadaas si fiican bay u kala fahantamaan filaya primary iyo secondary waayahay marka patients bukaanada in whom kuwaasoo no specific cause of hypertension can be found يعني aan la helayn no specific cause of hypertension wax hypertension-ka dhiig karka keena oo specific ah oo la garanayo ma jiro RCHB maxaa la odhanayaa waa primary hypertension waxaa lagu tiriyaa 80% ilaa 90%. Secondary hypertension waa maxay isaguna? Secondary hypertension kusoo arise a consequence of some other conditions. Wuxuu ka yimaadaa isagu cawaaqib xumo ka timi xaalad kale. Xaalad caafimaad darro kale qof ku dhacday ayuu ka imanayaa kani. Maxaa ka mid ah atherosclerosis baa ka mid ah waxa weeyaan in duxdii ama subagii uu ku sameysmo xiidadii dhiig. Renal disease baa ka mid ah xanuunadii kaliya ku dhacay baa ka mid ah endocrine disease baa ka mid ah xanuunada endocrine-kii hormoonaadkii kuwa ku dhaca macaankii waxaasi ka midkiin baa ka mid and others iyo kuwii oo kale marka haddii xanuunka qofka hayay xanuunka qofka hayay haddii uu keenay qofkan inuu hypertension ku dhacay waxaa la waa secondary waayahay kasoo gudub primary secondary marka dawooyinkan aan leenahay waa anti-hypertensive drugs ujeedadoodu waa maxay ujeedada dawooyinkan aynu u isticmaalnaa the central issue of anti-hypertensive therapy ujeedadu isku wadaro waa to lower blood arterial blood pressure ka hore soo sheegnay ee kordhay in hoos loo dhigo si hoos loogu dhigo arterial blood pressure kaas waxaa la isticmaalayaa anti-hypertensive drugs dawooyinkaas anti-hypertensive ka ayaa la isticmaalayaa waay u galna haddaba intaasi introduction-kii hordhaca anti-hypertensive therapy ahayd anti-hypertensive therapy markaa haddaba ayaan galno dawooyinkii waan gelaynaa haddaba qofka marka la daweynayo ee la doonayo in laga daweeyo xanuunkan hypertension-ka laba qaab baa loo kala saaraa labada qaab loo kala saaraya waxa weeyaan in qofkii lagu daweeyo dawooyin anti-hypertensive drug ah يعني دواء قفك دراج بلا سينية كو مرنا waxa weeyaan qofkii dawo lama siinaye qof lifestyle-kiisa noloshiisa iyo cuntadiisa iyo waxa wax laga bedelaya marka hadii dawo la siinayo waxa ay pharmacological therapy of hypertension laakiin hadii aan dawo la siinayo qofka waxa ay non pharmacological therapy of hypertension hypertension ka la daweynayo waxa loo daweynayaa qaab aan يعني qofkii dawo ama drug aan la siinin ayaa loo daweynaya
marka waxa la non pharmacological therapy of hypertension ay la yiraahdaa haddii laakiin dawo la siin maxaa la pharmacological therapy of hypertension marka waxaa jira several non pharmacological approaches tallaabooyin la qaadayo oo qofka dawo lama siinayo therapy of hypertension are available oo markaa si loo daweeyo hypertensionka la helayo marka non pharmacological approacheska waxaa ka mid ah low sodium chloride in diet qofka waxaa la odhanayaa cusbada ama milixda cuntada ka yare waa kow waxaa la odhanayaa miisaanka dhin weight reduction waa laba waxaa la odhanayaa exercise samee jimicso waa saddex waxaa la odhanayaa cessation of smoke sigaarka iska daa waa afar waxaa la odhanayaa cessation of alcohol consumption qofku in iska daayo hadduu alcohol iyo khamriga waxaa isticmaalayo joojiyo waay qolyahan kale gaaladii uga xidhaadaan qofku way yidhahdaan ha yaraysta bay yidhahdaan laakiin waxaan odhanaynaa waa cessation of alcohol consumption hadduu khamriga cabo joojinaya waayo marka horeba khalad buu u cabayay maadaama xaaraan yahay khamrigu dinteena islaamka waayahay waxaa jira psychological methods bay jira daaweeyo hab cilmi nafsiyeed marka qofkii yani in la dejiyo in la nasiyo waxyaabahaasaa ka mid psychological methods qodobka ugu dambeeya ka mid ah pharmacological therapy of hypertension waxaa ka mid ah dietary decrease in saturated fats in cuntada laga yareeyo dufanka weliba dufanka kee dufanku waa kee waa saturated fats maxaa saturated fats waa baruurta saturated fat haddaad maqasho waa baruurta unsaturated fat haddaad maqashana waa saliidda weeyaan waay way qaybta ku xigta waa qaybtii non pharmacological therapy of hypertension waxa non pharmacological qaybtii hore qaybtan waxaa waa pharmacological waa in dawo la isticmaalo way qaybta hore si fiican baad u fahatay baan rajeynayaa qaybta non pharmacological therapy-ga oo qodobadii kusoo sheegnay maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah cusbada in laga yareeyo cuntada waxaa ka mid ah qofku exercise inuu sameeyo jimicsi sameeyo waxaa ka mid ahaa qofku inuu weightkiisa iyo miisaankiisa hoos u dhigo waxaa ka mid ahaa inuu sigaarka iska daayo waxaa ka mid ahaa inuu khamriga joojiyo marka hore wax xaaraan ahaa baynu laakiin hadday dhacday inuu cabiyo oo joojinayaa waxaa ka mid ah in qofka in la dejiyo la nasiyo waxaa ka mid ah in qofku saturated fatska ama dufanka hoos loo dhigo cuntada u keeno weliba kuwa saturated fatska haddaba qaybta pharmacological therapy-ga u kaalay of hypertensionka marka inta ugu badan bukaanadu way u baahdaan dawo way u baahdaan xataa haddii non pharmacologicalka qofka la isticmaalo wax lagaga garto marnaba qofku dawadana laga diinay dawadana waa la siinaya marka most patients with hypertension require drug treatment way u baahdaan dawada to achieve sustained reduction of blood pressure si loogu guuleysto in blood pressure hoos loo dhigo marka dawooyinku hadda maxay sameeyaan qodobadii saameynayay blood pressure hore usoo sheegnay ee cardiac output-ka iyo total peripheral vascular resistance-kii ayay hoos u dhigaan mid ka mid ah ama labadoodaba marka dawooyinka qaarkood currently available drugsku waxay hoos u dhigaan blood pressure-ka iyagoo hoos u dhigaya cardiac output-ka qaar waxay yareeyaan total peripheral vascular resistance yani xididadii dhudhuubtay bay ballaarinayaan qaarna wadnaha ayay culayskii ka qaadayaan or both amba dawooyinka qaarkood labadaba way caawiyaan hoos bay labadaba u dhigaan
haddaba qaybta dawooyinka magacyadooda taxno qaybteeda pharmacological theory of hypertensionka magacyadooda taxinaa kala duwan magacyadooda dawooyinka waxaa ka mid ah drugs hypertensionka loo isticmaalo qaar la yidhahdo diuretics ama kaadibadiyaal baa la yidhahdaa waxaa ka mid ah qaar la yidhahdo directive vasodilators xididaday ballaariyaan waxaa ka mid ah qaar la yidhahdo angiotensin converting enzyme inhibitors ama AZ inhibitors baa la yidhahdaa waxaa ka mid ah qaar la yidhahdo angiotensin receptor blockers ama ARBs baa la yidhahdaa waxaa jira qaar la yidhahdo calcium channel blockers ama CCB baa loo soo gaabiyaa iyo qaar la yidhahdo sympathologic agents ama depressants of sympathetic activity. marka waa groupiskii dawooyinka marka insha allah sideen caawa markaasi ku joojin doonaa dawooyinkaasi markaa sii gudageli doona insha allah xiisada ku xigta marka waxaa nooga soo bilaabmi doona diureticska ayaa nooga soo bilaabmi doona hortaasaynu kasii wadi doonaa inaad muxuu ka fahanteen baan ayaan rajaynayaa inta ay la socoteen waana ku mahadsantii daawashadiina hadaad channelka soo booqatay subscribe ta naga iloobin insha allah casharadana cashara taxana insha allah ayaanu ka dhigi doonaa marka halkaas ku